wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abubakar Cismaan iyo wafdi hogaamiyo ayaa kormeer ku maray deegaanada Garhka waridaad barkada iyo Tuurka oo ay ka socoto dhismaha wadada Carigaabo iyo Burco kormeer kadib wasiirka iyo wafdigiisa ayaa lagu soo dhaweeyay duleedka galbeed degmada Garadag halkaas ay soo dhaweeyeen maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo waliba bahda dhaqanka ee degmada Garadag iyadoo soo dhaweynta wasiirka kadib xadhiga laga jaray wadada cabirkeedu dhan yahay 143 kilomitir oo dhismaha isku xidha saddex degmo Carigaabo Ceelaf Weyn iyo Garadag waxaana munaasabada xariga jarka hadalkiisa kala dambeeyay barasaabka gobolka Sanaag taliyaha qaybta booliiska iyo asluubta ee gobolka Sanaag iyo maamulka degmada Garadag iyo madax dhaqameedka degmada oo dhamaantood si isku mid ah u sheegay ee dhamaad ku dhowdahay dhismaha wadada Carigaabo iyo Burco kilomitir 148 kilomitir oo laamid ay dhamaatay oo hawsheedu dhamaatay oo looga gudbayo maxaan ku raahday qaybihii kale saacad wasiirad baan ugu faraxsanahay waxaan aad ugu hambalyeynaa wasaaradda guud ahaan hawsha iyagoo qarankii Soomaaliland oo dhan u idman hawsha baaxadda leh ay qabteen saacad wasiir runtii shukran warahmatullaahi wabarakaatuh mar labaad waxaan leeyahay wasiir soo dhawow iyo waftigaaduba waa degmadii Garadag aad iyo aad intaan tariiqa marinay ay shaqaalaha wadadan kaaga hawlgala ee qiimaha badan ku jooga dalka iyo dadka iyo wasaaradaba aad bay ula shaqeeyeen wax dambiyo ka dhaco ama isurtaaga ama waxay shaqadooda ka carqaladeeyeen ma jirto wax ilaahay loogu mahadnaqo wasiir adiga iyo waftigaaga waxaan aad idinka mahad celinaynaa booqashada noogu timaadeen iyo ka soo qaybgalka xafladan ee ku saabsan daafurka isku xidhka degmooyinka galbeedka gobolka Sanaag ee ay wadadu maraysay oo ah degmadii Garadag iyo Ceelaf Weyn iyo Carigaabo sidan hadeer aynu joogno si xaamiya oo ka bedelan sidii hore inay u soconayso ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay sidaa iyo si ka sii fiican u sii socoto oo inoo dhamaystirtaan ilaahay ka baryay 50 kilomitir iyo kaliya ayaan daamir saarayn Garadag baynu taagan nimka iyo Carigaabo oo aan maxaan ku raday daamirkii ku dhamaaday marka waxaan idin sheegayaa mucaarad iyo muxaafid ba wadadaas way dhamaatay ninkii cunsareedin jiray ninka amaani jirooba taas waa inta qalkii horeeya sheegay wasiir halka jaamacad baa noogu taala jaamacadda soo jaamacadda Soomaaliland baa ku oo lagu baran doono cilmi qaali ah oo la isugu iman doono waxaanu codsanaynaa maxalligeel maalin buuceel joogaaye hadda cagafyadii iyo boodiba joogaan kilomitirka wata jaamacadii inta ay nolod wadada reer Garadagnahay inkooda waxa ka warbixiyay habsami socodka dhismaha wadada maamul wasiirku si dhow iyo maareeyay si dhow bay nolol socdaan uga warbixin mayno waxaan maanta cod dheer gaarsiinaynaa waxqabadkii وكالة هرملت ودوينك مشروع wadada Carigaabo Burco in nalala alko umarayo intii wasiirka maarayo si dhow bay nolol socdaane maanta way noo yimaadeen mar walba daqiiqad bay nolol socdaan iyaga warramayno waxaan jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan meel kasta ay joogaan doonayna inaan gaarsiino baadii saxaafadana ku dhantahay inay arkaan wadada halkay marayso runtii iyo waxa aanu qabanay inta uu leeyahay halkan joognaa waa degmadii saddexaad ee gobolka Sanaag isku xidhantay laami yeelata maariyaha guud ee wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda horumarinta wadooyinka oo dhamaantood hadalkiisa kala dambeeyay ayaa si rasmi ah xariga uga jaray dhismaha wadadani bacda salaan waxaan maanta hadda xariga ka jarnay saddexdii degmo Garadag Ceelaf Weyn iyo Carigaabo waa 148 kilomitir oo dhamaaday oo daamirkii la saaray ilaahay bay nagu mahadnaqaynaa waxaan aad ugu mahad celinayaa shaqaalaha halka laga carbaabay oo injineerada maareeyaha madaxa mashruuca guud injineerada saydadka iyo shahaadooyinka loo diyaariyay ragga muhandisiinta ee hindisay inay soo saaraan warshad dabdhaliya ah oo daamirku shiilaysa oo halka joogo iyo shahaado la siin doono waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin aqligan ilaahay idin barakeeyo waxaan aad ugu mahad celinayaa reer Garadag oo aan muddo dheer wada deganayn si wada deganaan doono dhibaato dhex marin ceebina dhex ool sharafta shaqaalaha iyaga iyo toodaba waxa la aad baad ugu mahadsantahay wax kasto in maanta halkan ku faanayno marka fadliga ilaahay laga tago waxa suurta galiyay waa idinka anagu waxaanu nahay maamul guud taabka idin ku dhaca anaga naguma dhaco marka waxaad naga mudan tihiin inaanu mar kasto idin imaadno idin mahad celino
runna waan idiin sheegaya mar kasta oon idinka maqannahay waan idiin soo ducaynaa ilaahay inuu waxaad qabanaysaan marka laga tago manaaficad ka helaysaan inuu xagga miisaankiina xasanaadka idinku daro sababtaa waxaad dhisaysaan waa waddooyin waddaduna waxa weeye qof kastoo marayaana waa sadaqatul jaariya marka runtii aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahad celinayaa shaqaalaha hay'adda horumarinta waddooyinka gaar ahaan shaqaalaha mashruuca waddada Ceergaabo mahadnaqa haddaan ka tago laba qodob odayaasha codsaday annaguna waxaanu jecelahay inaan ku darno ujeeddadaannu safarkaygu ahaa horta ujeeddada safarkaygu waxa weeye waa safarkii caadiga ahaa ayaad ogeydeen sanadku markuu dhammaado waxaa wasaaradda iyo hay-adduba ay soo qiimeeyaan shaqada u socota iyo waxa u dhiman waxaanu ku soconnaa waa qiimayn shaqada la qabtay iyo waxa inoo hadhay iyo wakhtigaanu islaayna shaqada waad ku dhammaystiri doontaan idinka idin warrami maayo annaguna isku warrami mayno laakiin inta aan garanaynin halkan ee maanta aan garanaynin baan jecelahay ee reer Somaliland ee horumarka iyo nabadgelyada iyo dawladnimada iyo wax wada qabsiga jecel baan jecelahay inaan u warranno saa uu sheegay maarayuhu saddex degmo isku xidhmay saddexda degmo isku xidhmay waa 148 inta aan garanaynin waxa leeyahay waddadaas waxay u dhigantaa inta taqaana Hargeysa iyo Berbera marka la isku xidho 8 kilomitir ba halkaas dheerta marka waxa waddada la soo dhammaystiray waa inta u dhaxaysa Hargeysa iyo Berbera oo isku xidhan oo saddexda degmo maamulka degmada Garadag oo ugu dambeyntii deeq xoolaha iyo shaqo sharaf ku wareejiyay maamulka gacanta ku haya dhismaha waddada Ceergaabo qaybteeda Garadag Cabdisalaam Jaamac